iyadoo ay jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan waddanka Kenya ay dhammaan wada taageersan yihiin horumarka wax ku oolka ah ee ka socda waddanka Somaliland ee ku wajahan dhinacyada wadooyinka ayaa gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan waddanka Kenya Siciid Cabdiraxmaan Aadan iyo xubno kale oo ka tirsan gudida jaaliyadda ay sheegeen inay isu abaabulayaan sidii jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan waddanka Kenya ay taageero iyo taakulayn uga geysan lahayd dhismaha wadada halbowlaha ah ee isku xidha gobolkaasi Togdheer iyo gobolka Sanaag gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan waddanka Kenya Siciid Cabdiraxmaan Aadan faahfaahin kooban halkaasi ka bixiyay arrintaasi maruu TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee ka howlgala magaalada Nairobi uu waraysi kooban siinayay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa sida tan waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan shacabweynaha reer Somaliland meel kastoo ay joogaan gudaha dibad waxa kale oo aan u dirayaa hambalyo iyo taageero ballaaran xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo aan ku taageerayo waxqabadka ballaaran ee maanta ay u qabatay ummadda iyo dalkaba waxaan aad u taageerayaa wadooyinka localka ah ee gudaha waxa aan taageerayaa wadooyinka isku xidhaya gobolada iyo degmooyinka waxa aan si gaar ah u taageerayaa wadada isku xidhaysa gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer ceerigaabo ilaa magaalada Burco taasoo u ah laf-dhabar waddankeena una baahan in la taageero ka jahliyad ahaan annagu haddaanu nahay dalka Kenya dalka Tanzania Uganda dadka ku dhaqan ee asaliyan ka soo jeeda reer Somaliland waxaanu diyaar u nahay in aan wixii karaankayaga ah ee aanu ka qaban karno taakulo iyo bogaadinba aanu ka samayno waxaanu u diyaarsanahay inaanu samayno guddiyo kala duwan contribution ururiya si aanu uga qayb qaadano waxqabadka ka socda waddanka gudihiisa waxa isaguna halkaasi hadalka ka sii ambaqaaday boqor Mustafa Nuur Maxamed isagoo hadalkiisa ku bilaabay sida tan waxaan halkan ka salaamayaa marka hore madaxweynaha qaranka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici iyo afooyinkooda waxaan kaloo salaamayaa labada gole qaran shacabweynaha Somaliland gudaha iyo dibadda waxaan si gaar ah u salaamayaa gudida wadada ceerigaabo isku hawshay inay dhamaystiraan ee isku xidha ceerigaabo iyo Burco waxa aan hambalyeynayaa xukuumaddan saddex jirka ah wixii ay qabatay oo aan indhaha laga lalin karin oo ay ka mid tahay waxayna halkan ku soo koobi karin hadday noqoto darajada oo ugu qiimo badan oo ay ciidamada Somaliland garbaha ugu taxday adii ilaahay ku roon yahay lacagtii gimbeerka ahayd ee ummadda dhibtay ee cudurka u keenaysay oo ay Burco ka bedeshay waxa kale oo aan eegaynaa oo hambalyo uga diraya xukuumadda waxqabadkeeda jidka isku xidha Berbere ilaa Hargeysa oo maanta aan intii ay xukuumaddu dayactirka ku sameysay aan laga soo sheegin shil gaari oo ka dhaca waxa aanu hambalyo ugu soo jeedinayna oonu ilaahay uga baryeena inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala la garab galo wadada isku xidha halbowlaha Somaliland ceerigaabo iyo Burco walaalahayga waxay daawanaya ee jaaliyadda reer Somaliland ee East Africa waxaan ugu baaqaynaa aniga iyo gudoomiyuhu inaynu isu nimaadno waar aynu shilin ku darsano walaalayaal waxa kale oo intaasi raaciyay gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ku dhaqan waddanka Kenya inay ku wargelinayaan gudoomiyayaasha jaaliyadaha Tanzania iyo Uganda ee reer Somaliland inay iyaguna geestooda iska abaabulaan una diyaar garoobaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen taageerada iyo taakulaynta wadadaasi isku xidha gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer Cabdilaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Nairobi